alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii atuxfatu saniya lilimaam maxamed muxiyadiin cabdulxamiid oo ajruumiyada uu ku sharxayay waxaana soo gaarnay baabul icraab icraabkii baabkiisii ayaan soo gaarnay. waxaa la icraabaa carabiga waa laba kelimo, isimku saddexuu u qaybsamaa, isim daahir ah iyo isim mubham ah iyo isim mudmar ah, saddexdaas u qaybsamaa. isimka daahirka unbaa la icraabaa. ficilkuna saddexuu u qaybsamaa, ficil maadi, ficil mudaaric iyo ficil amar. ficilka mudaarica unbaa la icraabaa. icraabna waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo kelimada aakirkeeda, aakirkaas xaaladiisu inay isbedesho hadday isbedelaan caamilka cawaamisha ka horeeya. ila cawaamishi mid wuxuu rabaa inuu wax kor dhigo, mid wuxuu rabaa inuu wax godo, mid wuxuu rabaa inuu wax hoos dhigo, mid wuxuu rabaa inuu wax reebo. mar kastoo marka caamilku isbedelo aakirka xaaladiisu waa inay isbedesho. isimkii daahirka ahaa oo xaaladiisu isbedbedelayso waan soo mithaalinay. xadara muxamedun, ra-aytu muxamedan, xadaytu bimuxamedin ayaan kusoo mithaalinay. waxaan hadda mithaalinaynaa insha allah ficilkii mudaarica ahaa oo xaaladiisu isbedbedelayso, sababta isla bedelayna ay tahay caamilka ka horeeyo isbedelay. uu ku yidhi wa mithlu lismi, isimka waxaa la mid ah fii daalika isbedbedelkaas aakirku isbedbedelaya waxaa kula mid ah alficlu lmudaaricu, ficilka mudaarica ah. ficilka mudaarica ah ayaa kula mid ah. falow qulta haddaad tidhaahduu ku yidhi yusaafiru ibraahiimu, ibraahim waa safraa, ibraahim waa safraa haddaad tidhaahdo. u fiirso, yusaafiru waa ficil mudaaric. ficil mudaaric wixii aad ku gara jirta laba calaamaa lagu gara jiray, labadii ka fiir. waxa weeyaan kelimad ku tusta xadath, dhacdo waa inay ku tustaa. dhacdadaasuna waa inay waqtigan hadda la joogo dhacayso ama waqtiga soo socda. yusaafiru dhacdada ay ku tusaydaa waa safarka. safarkaasuna hadduu dhacaa oo hadduuba kabaha cagta gashanba ibraahim, ama mustaqbalka soo socda berriyo kaleu safri rabaa. markaa tiraa yusaafiru ibraahiimu, ibraahim wuu safraa, laba macna waa aqbali kartaa. hadduu dhaqaajina, berriyuu safraa, labada waa aqbali kartaa. marka yusaafiru in ficil mudaaric tahay saasaa ku tusi. haddaba yusaafiru maanta way godan tahay aakirkeedu fiiri, sababtoo ah ficilka mudaarica ah caamil kordhiga hadduusan ka horreyn, caamil reebaana uusan ka horreyn, ficilka mudaarica waa la iska goda. weynta la waaye caamil kordhiga iyo caamil reeba, weyntaasa u ah caamilkii waxa weeyaan kordhi godaaye. weynta la waayey caamil kordhiga iyo caamil reeboo jasmiya, weyntaasa u ah calaamad rafcida ama godda. fa yusaafiru uu ku yidhi ficilun ficil weeye, ficilkoo mudaaricun mudaaric ah, ficilkaasoo marfuucun la goday oo awa caamilka goday. caamilka goday waxa weye litajarudii ficilka ka dharbeelidiisa min caamilin caamil uu ka dharbeelay, caamilkaasoo yaqtadii dalbaya nasbahu la kordhigidiisa, yaqtadii dalbaya nasbahu la kordhigidiisa. ow amase caamilin ayuu ka dharbeelay, caamilkoo yaqtadii dalbayo keensanaya waxa weeyaan jasmahu la reebidiisa. labadaas ka dharbeelidda uu ka dharbeelay ayaa u ah caamil goda. ficilkan mudaaric labadaas ka dharbeelidda uu ka dharbeelay, caamil waxa weeyaan nasbiya iyo caamil jasmiye, labadaas ka dharbeelidda uu ka dharbeelay macnaha labadaas weynta laga waayey kaasaa u ah caamil goda. fa idaa qulta haddaad tidhahduu ku yidhi lan yaqtadiya, fa idaa qulta haddaad tidhaahdo lan yusaafira safri maayo ibraahiimu, ibraahim lan yusaafira, lan ka hormari. lantu ficilka mudaaricay gashaa waana kor dhigtaa, ka hormari. tagayara waxaa isbedelayuu ku yidhi xaalu yusaafir, yusaafiru xaalkeedu waa isbedeli. min arafci god ayuu iska bedelin
ila nasbi kordhigu isku bedelin sababtu isla bedelin waa maxay litagayuri lcaamili caamilka isbedelidda uu isbedelay caamilkii rafcada keenayay waa isbedelay wuxuu isku bedelay bicaamilin aakhara caamil kale caamilkaasoo yaqtadii keensanaya nasbahu yusaafir in la kordhigo caamil keensanayo dalbaya in la kordhigo yusaafir wa huwa caamilka nasbada dalbaya nasbada keena lan weeye fa idaa qulta haddaad tidhaahdo lamtii ka saar marka ee caamil wax jasmiye keen caamil wax reebo ficilka mudaaric aakhirkiisa reebo keen fa idaa qulta haddaad tidhaahdo lam yusaafir maba safrin ibraahiimu ibraahim tagayara haddana waa isbedelin xaalu yusaafiru xaalkeedu waa isbedelin min arafci goduu iska bedelin aw inasbi kordhiguu iska bedelin ilaljasmi reebuu isku bedelin oo maxaa reebka keenay litagayuri lcaamili caamilka isbedelidda uu isbedelay caamilkii nasbada keenayay waa isbedelay bicaamilin caamilu isku bedelay caamilkoo aakhara kale caamilkaasoo yaqtadii keensanaya jasmahu in yusaafiru la reebo wa huwa caamilka jasmada keenaya lam weeye waclam ogow anna haada tagayura isbedelkan yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa lafdiyin mid dhawaaq loo nisbeeyey oo haddii lagu dhawaaqo la maqlayo haddii la qorana la arkayo lafdiyin ilaa qismayni u qaybsamaa lafdiyin mid dhawaaq loo nisbeeyey u qaybsami oo haddii lagu dhawaaqo la maqlayo haddii la qorana la arkayo ma garatay waa midkaan shala soo nidhi an yakuuna masmuucan fi lmalfuudi wax haddii lagu dhawaaqo la maqlaa waa inuu yahay wa marii'an fi lmaktuubi qoraalkana laga arkayo oo haddii meel lagu qoro loo jeedo waa inuu yahay iyo wa taqdiiriyin isbedel oo taqdiir loo nisbeeyey waa kaas cagsigiis anlaa yakuuna masmuucan fi lmalfuudi walaa marii'an fi lmaktuub waa wax isbedel aan haddii la qorana la arkayn haddii lagu dhawaaqana la maqlay waan soo miithaalinay shalay marka labadaas u qaybsami labada waxa keenayana waan soo sheegna waxaan idhi xuruuftii hijaa'iga ama xuruuftii alifka 28 xarafay aheyd 28 xaraf 3 xaraf xuruuful cilla la yidhahdaa xuruuftii jirada oo waa 3 waa alifta iyo wowda iyo ya-da kelimaday u dambeeyaanna maxaa la yidhaahdaa muctalul aakhir kelimad aakhirka ka jiran 3daas xaraf hadday ficil u dambeeyaan ficilka waxaa u daba mara 3daba isimkana alifta iyo waxaa u daba mara ya-da kelimaday u dambeeyaan muctalul aakhira la yidhaha ixraabkeedu waa taqdiiri 25 xaraf oo kale waxaa la yidhaha axruf saxiixa xuruuf saxiixa la yidhaha caafimaad qabta kelimaday u daba maraanna waxaa la yidhahdaa saxiixul aakhir kelimad aakhirka ka fiyow oon bugto iyo balaayo qabin ixraabkeeduna waa ka muuqdaaho waa lafdi 25kaas xaraf kelimaday u daba maraan icraabku waa ka muuqana marka taas waa inaad la socotaa wuxuu ku yidhi fa ama lafdiyu taqdiirta oo lafdiga loo nisbeeyey fa huwa kan lafdiga maa shay weeye laa yamnacu uusan diidayn min annutqi in lagu dhawaaqo bihi icraabka maanicun mid diida waa midka aan icraabkiisa in lagu dhawaaqo wax diidayaa jiri oo waxa weeyaan xarfulcilla uma dambaydo kamaa ra'ayta sidaad ku soo aragtay min xarakaati daali daalkii xarakooyinkiisii daalkaasoo min maxamed xaggiisa ka ahaaday daalka maxamed xarakooyinkiisa waa nagii ku dhawaaqnay xadara muxamedun ra'aytu muxamedan xadaytu bimuxamedin adiga saas waa nagii ugu dhawaaqnay iyo wa xarakaati raa ra'dii xarakaadkeedii ra'daasoo min yusaafiru xaggeeda ka ahaatay ra'daas xarakaadkeedana waa nagii ku dhawaaqnay oo nidhi yusaafiru ibraahiimu lan yusaafira ibraahiimu lam yusaafir ibraahiimu waa nagii nidhi waa ku dhawaaqnay kaasoo kale la yidhahdaa lafdi ilaa labadaba waxaa u daba maray midna daal oo xaraf saxiixa ah midna ra-a u daba marto xaraf saxiixa ah wa ama taqdiiriyu tagayurka isbedelka oo taqdiiriga ah fa huwa taqdiirigu maa shay weeye yamnacu uu diidayo
min atalafudi bihi in lagu dhawaaqo maanicun mid wax diida miduu diidayo oo waa maxay midka wax diida oo diidaya min tacadurin cudurtoomid ah ow istithqaalin cuslaysi ah ow munaasabatin ama munaasaba ah. maxaa loola jeeda waxaa weeya waxaan idhi ficilka waxaa u daba mara saddexda xaraf oo xarfu cilaha saddexda waa u daba maraa ficilka mudaaric. alif waa u daba mara, ya-na waa u daba martaa, wowna waa u daba martaa. isimkana waxaa u daba mara alifta iyo ya-da bis ee wow uma daba maro ma jirto isim daahir ah oo wow reeban u dambayda ma jirto. haddaba xuruufta sidaanay kala yihiin. kelimada hadday u dambaydo ama ficil ha ahaato ama isim ha ahaato ee markay u dambaydo alif kelimaday u dambaydo icraabkeeda waa lagu qadaraa tacaduran. tacadur waxa weya suurtagalba maahan in laga muujiyo wey, maba dhici karto in laga muujiyo. hadda mathalan muusa ayaa isim ah, alifna u dambaydaa, ma dhici karto muusa inaad ka muujido waxa weeyaan xarakada aakhirka, sababtoo alif xaraka kamaba muuqato. waxa xarakada la saaraa waa hamsada. hamse iyo alif kala garo. haddaad tidhahdo ashyaa kelimadan maxaa u dambayda? hamsa u dambaydaad leedaha, dhihin alif u dambeeyo, alif uma dambeeyo. laakiin muusa, ciisa, fata maxaa u dambeeya? alifa u dambeeya. waa inaad alif iyo hamse saas u kala garata. marka alifta icraabka lagama muuji karo, waa tacadur, waaba suurtagalba ma aha wey. tacadur waxa la aan suurtagal ahayn. marka kelimada haddii uu alif u dambeeya ama ficil ha ahaato ama isim ha ahaatee, icraabki waa lagu qadarin. cilada keenayda in lagu qadarin waa suurtagal la-aan. xagga dhig kelimada haddii ay u dambaydo wow ama ya, wowdu yay u daba martaa ficilka mudaaric, ya-duna yay u daba martaa isimka iyo ficilka labadaba. haddii kelimada wow u dambaydo ama ya u dambaydo waa laga muuji karaa icraabka, laakiin culaysaa ku jira. oo waxa weeya mathalan wowdii ficil mudaarica u dambaydo keen yadcuu, damada waa laga muuji karaa. haddii laisku dhibo waa laga muuji karaa. waxaa la dhihi karaa yadcuu fiiri, wowdiisoo damo maanaan saare, laakiin culays dhibka aan kala kulmay soo ma jeedid. yadcuu fiiri, haye ya-dii ficil mudaarica u dambayda keen yaqdii, waa laga muuji karaa ti laisku dhibo. oo maxaa la leeyahy yaqdiyo. haye isim oo yaa u dambayda keen alqaadi, jaa alqaadiyu. culaysaa ku jira. carabigan culayska looma ogola, saas darteed carabti waa diideen in koosta kale laga muujiyo. waxay idhahdeen haba suurtagalba ha ato wax la suuray kara ha noqdo, laakiin laguma hadlo. waa in lagu qadaro la yidhaha yadcuu, yaqdii, yarmi. waa in la yidhahdaa alqaadi, waa in lagu qadara. waa in kelimada inta la iska reeba aakhirkeeda damadii lagu qadaro. ma garat? marka waxa weeyaan hadday u dambaydo wow iyo hadday u dambaydo ya waa lagu qadarin. hadday kelimadan u baahneed damo, damadii waa lagu qadarin. damada waa lagu qadarin. maxaa loogu qadarin? waa laga muujin karaaba lilistidqaali ad leeda, culaysa ku jira ka muujinta. laakiin alifka maxaan soo niri suurtagalba ma aha, litacaduriyaa loogu qadara. laakiin wax yar oo munaasib halkaas waa inaad fahamtaa. kelimada carabiga waan arki doonaa insha allahu ye kelimad walbaaba saddexay xarakaadka ku leeda. isimku saddexuu qaataa. muxuu qaataa? god, kordhig, hoos dhig. laakiin isim reeban maba jiro oo mucrab ogow, ilaa kuwaan cudurku ku dhacay maahan oo jireen. ko ficilkuna saddexuu qaataa. oo waa maxay saddexdu? waa god, kordhig iyo reeb. ficil lahoos dhigaa ma jiro oo mucrab. ficil mudaarica lahoos dhigaya ma jiro, soo ma jeedin. haddaba kelimooyinkan marka haddii alif uu u dambeeyo ficilka laba gooraa lagu qadara. labada goor waa labadee? waa godka iyo kordhiga. haddii wow ay u dambaydo ficilkana ama ya ay u dambaydo hal maraa lagu qadaraa. waa godka bis wax lagu qadara. isimka waxaa u daba mara waa waxaan rabaa waa alif iyo ya. alifta saddexdaba waa lagu qadaraa. isimka saddexdaba waa lagu qadari.
oo saddexdii icraabka uu isimku qaadan jiray maxay ahayd god kordhig hoos dhig saddexda baa lagu qadari hadday isimka u daba marto ye labaa lagu qadara waa maxay labadaasu waa godka iyo hoos dhigga intaas ma fahanteen marka wax sababta loogu qadarana waa kala sheegay oo alif hadduu u dambeeyo sababta loogu qadaro waa maxay tacadur haddii uu u dambeeyo waxa weeyaan wow iyo yana sababta loogu qadara waa maxay istithqaal cuslaysi intaas waa inaad hayda maxaa noo haray ow munaasabat inaad hartay munaasabada waa maxay munaasabato isimkay ku gooni tahay ficilku lama laha waxa weeyaan isim xaraf saxiixu u dambeeyo soo qabo waxaad soo qabataa mathalan kitaabun iyo ghulaamun labadaas noo soo qabo kitaabun kitaab ghulaamun addoon labadaas soo qabo labadaas adigu isku nisbe ye la xiriiri ye-ad waxay tustaa qofka hadlaayo kitaab marka hore wuxuu iska ahaa shay dadka ka dhexe halkaas yaalla kitaab adigu isku tiiri waxaad tidhahdaa kitaabii aniga kitaabkaygii ama ghulaamii addoonkaygi ya-daasu markay la xidhiidhsato isim saxiixul aakhir ahaa maxaa imaana ya-da xarafka ka horeeya in la hoos dhigay rabtaa wax kale ma yeesho haye kitaabii ya-da xarafka ka horeeya waa xarafkee waa ba'dii ba'duna waa kelima xarafkii ugu dambeeyey waxa weeyaan kelimadda kitaab xarafkii ugu dambeeyey wey ya-da maxaana la saaray hoos dhiga la saaray hoos dhigan yaa keensaday ya-day manaasib u tahay ya-da xarafka kordhigna manaasib uma ahan inuu ka hormaro godna manaasib uma aha maxaa u manaasiba hoos dhig inuu ka hormaro kitaabii haye ghulaamii haye caamil soo geli kitaab marka fiiri caamil wax goda soo geli haadaa kanu kitaabii icraabkuna halkuu degaa xarafka ugu dambeeya kelimadda soo maaha marka kitaab icraabkiisu ba'da inuu degaa la rabaa haye waxaad tidhaahdaa haadaa kanu kitaabii waa kitaabkaygi ba'dii waa hoos dhiganta maxaa dhacay in la godaan la rabaa maanta waa godanta kitaab waxaa la leeyahay icraabku meeshuu degi lahaa waa ba'dan ba'dii waxaa saaran xaraka manaasibaha oo ya-daas darteed meesha loo dhigay hal xarafna laba xaraka lama saari karo kelimad kordhig iyo hoosdhig ma laysla saari karaa suurtagal maaha marka waxaa laleeyahay meeshii ya-du waxay leedahay aniga martiyaan ahay anaa imidoo meeshaan jooga ba'da anaa xaraka saartay ayaan laga taaban caamilkii wuxuu leeyahay ba'da aniga xarakaan u raba waxaa laleeyahay ya-daana martiya iyadaa meeshii degtay munaasiba darteeda loo saaray caamilow adiga xarakadaadi meeshaa lagu qadara godkii meeshaa lagu qadara alaleey fiiri marka manaasibada aad maqlaydaa waa maxay ya-daas waxaa u manaasiba kasro ama hoos dhig xarafka ka horreya in la saaro xarafka ixraabku degi lahana waa ya-da xarafka ka horreeya oo kasrada la saaray hal xarafna laba xaraka lama saari karo laba shaqa lama saari karo saas darteeda xarafkii waxaa saaran xaraka u manaasiba ya-da ka dambayda caamilkiina wuxuu rabaa mar inuu god saarto aakhirka mar inuu kordhig saartuu rabaa marna hoos dhig inuu saaruu rabaa xarakadii marka caamilku keenayey meesha lagu qadara waxaa leedahay haadaa kitaabii kitaabii ba'daas waa godanta laleeyahy godkii waa loo niyeysana soo ma jeedid waxaa leedahay ishtaraytu waxaad leedahay bictu kitaabii ade bictu waan iska gaday kitaabii kitaabii maanta waa kordhiganta aw kordhig waa lagu qadara meesha lagu niyeysana ilaa meesha ay degi laheed waa ba'daas ba'diina waxaa degay xarakada oo ya-da u manaasibka sidaasa leedahay marka waa noocaas marka tacadurna waad fahantay istithqaalna waad fahantay munaasabana waad fahantay waa inaan iska laqbayna kitaabka marka on ka socono taquulu waxaad leedahay yadcuu waa u yeeraa alfataa wiilkii dhalinyarada ahaa walqaadii kii dadka kale xukminayey wa ghulaamii addoonkaygii saddexda waa u yeerayaan qofay u yeerayaan kale maxalshaahidka maanta laga rabaa waxa wey yadcuu waa ficil mudaaric inay ficil mudaaric tahay labadii macno ka fiiri xadath horta waa u kutusaa dhacdo oo yeeristaan haddana goormay dhacaysa waqtigu dhacaa waqtigan hadda la joogo ama mustaqbalka waa u yeeraa hadduuba dhawaaqa ama hadhow dhawaaqi doona waa kaasa waa ficil mudaaric wowa u daba martay waana godan yihin fiir ficilkaas mudaaric yadcuu waa godan yihin
maxaa yeelay ficil mudaaric waxaan ogaanay inuu godo waxaa godo in laga waayo caamil nasbiya iyo caamil jasmiya labadaas haddii laga waayo waaba iska godan yahay haddana caamil nasbiyaana kama horeeyo lan kama horeeyo caamil jasmiyaana kama horeeyo lan kama horeeyo haddii labadii caamilba laga waayo waaba iska godan yahay ficilka mudaaric yadcuu maanta way godanta aawa damadii wawda lagu qadara sababto awa culayska ku jira in laga muujiyo haye alfata waa faacil faacilna waxaan soo ogaanay marfuuc inuu godan yahay aawa marka damadii alfata alfata dee alifa u dambeeya waa muctal aakhir soo maaha icraab lagama muujin karo tacadul waa tacadul wey waa lagu qadari damadii walqaadi waxay ku cadfan tahay faacilka wax alla wixii lagu cadfo faacilna waa la godaa haye alqaadi way godanta aawa damadii godkii maa ka muuqdo waa lagu qadaraya-da maxaa lahay in laga muujiyo culaysaa ku jira lil istidqaaliya lagu qadari culays dartiis wa gulaami gulaamun ay iska hayd kelimadu waa saxiixulcaaqli iyadu laakiin maxaa la xiriirsaday yaa lmutakalim qofka hadlaya ya-diisa yaa la xiriirsaday markay ya-daasu la xiriirsatay icraabku meeshuu degi lahaa miimkay aheede miimkii waxaa la saaray ya-da xaraka u manaasiba ya maxaa u manaasiba inay ka hormarto kasro wax kale manaasib mu aha kasradaasaa miimkii la saaray hal xarafna laba xarako isku mar lama saari karo hal xarafna laba xarako isku mar lama saari karo haddaba sidaas darteeda waxaa la leeyahay munaasaba darteeda loogu qadarin gulaamna icraabka munaasaba darteed macnaha waxaa degay miimkii xaraka ya-da u manaasiba xarakadii icraabka marka waa lagu qadari meesha wuxuu ku yidhi marka fa yadcuu yadcuu marfuucun waa la goday uu ku yidhi maxaa loo goday aw caamilka goday waxaa loo goday uu ku yidhi litajarudii ka dharbeelidda uu ka dharbeelay darteed min annaasibi caamil kordhiga iyo waljaazimi caamil reeba labadaas hadduu ka dharbeelo ficilka mudaaricna waa la godaa walfataa alfataa marfuucun asna waa la goday maxaa loo goday likownihi ahaanshada uu ahaaday darteeda loo goday faacilan faacil faacil u noqday faacilna waa marfuuc walqaadi iyo waqulaamiina marfuucaani labadoodaba waa la goday oo maxaa loo goday liannahumaa labadoodu macduufaani waa kuwa lagu cadfay cala alfaacili faacilkii almarfuuci la goday haddaba afarta kelimaba waa godan tahay yadcuu alfataa walqaadi waqulaami aaway maa ka muuqdo godki aawa damadii wuxuu ku yidhi walaakin idamatu godaalkii laa tadharu kama muuqa karto fii awaakhiri haadihi lkelimaat kelimooyinkan aakhiriyaalkooda kama muuqan karto oo maxay uga muuqan weyday waa litacadurihaa damadii waa cudurtoontay filfata filfata isaga alifa u dambeeya waaba macduurba suurtagalba maahan in laga muujiyo taasaasay uga muuqan weyday wa hiqalihaa culayskeeda darteeda uga muuqan weyday fii yadcuu iyo wa fi lqaadi labadaas waa la suuray karaa laakiin culaysaa ku jira culayskan carabiga waa laga ilaaliya labadaas waxay loogu qadaray culayska dartiisa haye waxaa soo haray qulaami waliajli munaasabati yaa-i lmutakalimi qofka hadlaya ya-diisa munaasabadeeda darteed ayay uga muuqan weyday fii qulaami qulaamina waxay uga muuqan weyday qof hadlaya ya-diisa gadaal kala xiriirsatay ya-daasaa meesha ixraabku degi lahaa waxaa loo saaray xaraka ya-da u munaasiba fa takuunu waxay noqonaydaa hu ku yidhi addamatu damadii muqadaratan mid lagu qadaro calaa aakhiriilkelimati kelimada aakhirkeeda manaca waxaana diiday min duhuurihaa duhuurahaa minta zaa-idaad manaca waxaa diiday min duhuurihaa xarakadii inay muuqato ey duhuurahaa adtacaduru cudurtoomid aa diiday cudurtoomid yay u diiday wariyay u diiday cudurtoomiddu alfata waa la gartay awith amase awithiqalu culayskaa diiday culaysku yuu u diiday yadcuu iyo yaqdii alqaadi miyuu ahaa yadcuu iyo alqaadi macnaha midka wowdu u dambaydo iyo kan ya-du u dambaydo labadaas waxaa diiday hiqal ow amase waxaa diiday ishtiqaalulmaxalli booskii ixraabku degi lahaa ayaa waxaa mashquuliyey bixarakati lmunaasaba ishtiqaalulmaxalli booskii ixraabku degi lahaa ayaa wuxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba xarakada ya-da u munaasibka waa ghulaamiin booskii ixraabku degi lahaa waa halkee maxalka waa miimka
miimkaasa ixraabku degi laha ila kelimada xarafka ugu dambeeya ixraabku degaa. ya-a marka gadaal kala xiriirsatay oo iyadu isim gooriy ah, ya-daanu keligeeda isimta waa isim damiira la yidhaha keligeeda isimta. marka booskii uu degi lahaa ixraabka oo miimka ah waa mashquulay. muxuu ku mashquulay? bixarakati lmunaasaba, ya-daan xaraka u munaasiba oo kasra ah. marka meel ixraab degaba ma leh, waa lagu qadari marka. wa taqulu waxaad leedahay yuu yidhi lan yardaa raalli noqon ma. hadda waxaa la rabaa haddana ficil mudaarico alif u dambeeya in lagu tusaaleeyo. lan yardaa raalli noqon ma alfataa wiilkii dhalinyarada ahaa, waalqaadi qaadigiina raalli noqon ma, wa qulaami addoonkayguna raalli noqon ma. habshaahidka maanta wax isbedelay waxaa ka jira yardaa ficilkaas mudaaric alifa u dambeeya, ali waana nasbisan yihi. marka markii horeeto yadcuu ficilka mudaaric maxaa lagu qadaraya damu ilaa waa rafcisnaaye. hadda yardaa waa ficil mudaaric oo nasbisan oo kor dhigan, ilaa lan a ka horeyda soomaha inuu kor dhiganya taasa kutusaysa. laakiin nasbadii ma ka muuqane? kama muuqanayda, waa lagu qadaraya. maxaa loogu qadaraa? litacadur, waa cudurtoontay, suurtagalma maaha. inta kale waa sidoodii. alfataa waa faacil waana goday, damadiya lagu qadari. walqaadi iyo waqulaamiina, walqulaamiina waxa weeyaan waa lagu qadarin damadii. waqulaamiina waa lagu qadarin damadii. marka fiiri alfataa waa faacil, damadiya lagu qadarin. maxaa loogu qadarin? tacadur, waa cudurtoonta. walqaadina waa ku cadfan tahay, damadiyaa lagu qadarin. maxaa loogu qadarin? istithqaal, culays daraadiis. wa qulaamiina damadiyaa lagu qadarin. maxaa loogu qadarin? munaasaba. wa taqulu waxaa leedahay ina alfataa wiilkii dhalinyarada ahaa, wa qulaamii iyo addoonkaygii lafaa-izaani imtixaanka way ku baasayaan. ina alfataa u fiirso, alfataa maanta waa isimkii fiiri oo alifta u dambeyday. inadan isimka ka dambeeya way kor dhigtaa. inada waa noo imaan doontaa maxalkeedii, isimka ka dambeeya way kor dhigtaa. hadda alfataa way kor dhiganta. markii hore waxaan ku qadarayn alfataa maxay had daman ku qadarayn. hadda alfataa waxaan ku qadaraynaa fatxo, kordhigan ku qadarayna. maxaa yale caamilka ka horeeyaana tusa waa isbedesho fiiri. alfataa marka hore waa godneed, haddana alfataa waa kor dhiganta. laakiin isbedel kuma muuqanayo ila kelmadiya muctalo aakhire ma muuqanayo. marka fiiri alfataa maanta waxaan ku qadaraynaa fatxo, haye wa qulaamiina ayadana fatxaan maanta ku qadarayna ilaa waxay ku cadfan tahay isimkaas oo alfataa ah oo kor dhigan. ina alfataa shaabki iyo qulaamii addoonkaygu lafaa-isaan imtixaanka waa ku guuleysanayaan. wa taqulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bilfataa wiilkii dhalinyarada ahaa, iyo wa qulaamii addoonkaygii iyo walqaadi qaadigii. u fiirso marka waxa weeyaan alfataa maanta waa hoos dhiganta. maxaa yale caamil wax hoos dhiga ka hormaray, sow caamilulkhafda kama hormarin. ba'daasoo ka mid maahan xuruuftii wax hoos dhigi jiray. marka alfataa maanta waa hoos dhiganta. maxaan ku qadaraynaa? waxaan ku qadaraynaa kasro. qulaamii maanta waa hoos dhiganta. maxaa yeele waxay ku cadfantahay alfataa. walqaadiina waa hoos dhiganta, ayadana waxaan ku qadaraynaa kasro. saddexda waa hoos dhigay. hadda markaa fiiri kelimooyinkiisa isku badbedeleen. alfataa mar waa godneed, waa markay faacilka aheed. caamilkii godaalka inta laga saara caamil kordhiga la gersho inaa la gershay way kor dhiganta. caamilkii kordhiga inta laga saara caamil hoos dhiga la gersho ba-a la gershay waa hoos dhiganta. saddexda xaalo oo ay isbedeshay hal mar kama muuqan, so ma aadan jeedin saddexda. kadaalika sidoo kaleeto fiiri qulaamii mar caamil godaal la gershay waxba kama muuqan. caamil kordhigaa la gershay oo goorma caamil kordhigaa la gershay? ina alfataa wa qulaami waa taasa. haddana caamil hoos dhigaa la gershay marartu bilfataa wa qulaami, bilfataa ay ku cadfanta. haddana saddexda goor icraabkii kama muuqan, saddexda baa lagu qadaray. alqaadi ya-a u dambayda isimkaas, waxaana nidhi isimka yaad u dambayda laba goor bisa wax lagu qadaraa. marka uu marfuuca yahay oo uu godan yahay iyo markuu majruurka yaho hoos dhigan yahay, labadaas gooraa lagu qadara. so uma jeedid. laakiin markuu kor dhigan yahay laguma qadaro. labadii goorna waa lagu mithaaliyey. labadii goor lan yardaa raalli noqoma alfataa walqaadi. alqaadi waa godanta ilaa waxay ku cadfan tahay alfataa oo faacile. haye ayadoo hoos dhigana waa lagu mithaaliyo waxaa lagugu mithaaliyey
marartu bilfataa wa qulaami wa qaadi qaadidan waxay ku cadfan tahay alfata oo hoos dhigan ism hoos dhigan isimkii lagu cadfana waa hoos dhigay marka asagoo godana waa lagu mithaaliyey isimkii yaad u dambeyday asagoo hoos dhigana waa lagu mithaaliyey asagoo kor dhiga laguma mithaalin sababta maba lagu qadaro isimka yaad u dambaydo waa ka muuqata fatxadu maxaa yeele fatxadu waa fudayd iyadu awalna ciladii lagu qadaray maxay ahayd culayski meesha waa ka bax wuxuu ku yidhi sheikhu famaa lafdigii kaana aakhiruhu aakhirkiisa uu ahaaday alifan famaa lafdigii ficil iyo ism labada way isla soo gelaya famaa lafdigii kaana uu ahaado aakhiruhu aakhirkiisa alifan aliftaasoo laazimatan joogta alif joogta muxuu iskaga ilaalinaa waa ictiraaza ya wuxuu iskaga ilaalinaa alif marna imaanaya marna tegayda sida musanaha noogu imaan doonto musanaha alifaa ku jirta xaalatu rafca xaalatu nasba iyo xaalatuljarra waa iska tagtaa marka taasoo kalea la iska ilaalina wuxuu ku yidhi famaa lafdigii kaana aakhiruhu aakhirkiisu uu ahaado alifan aliftaasoo laazimatan joogtaa tuqadaru waa lagu qadaraa caleyhi korkiisa jamiicu lxarakaati xarakaadka dhammaantood day isim tahay waxaa lagu qadarin 3 godkii waa lagu qadarin damadii fadxadiina waa lagu qadarin waa kordhigii jerkii kasradiina waa lagu qadarin waa hoos dhigii wuxuu yidhi sheika u fiirso famaa lafdigii kaana uu ahaado aakhiru aakhirkiisa alifan aliftoo laazimatan joogta ah oon marna tegay tuqadaru waa lagu qadaraa calayhi lafdigaas korkiisa jamiicu lxarakaati xarakaadka dhammaantood litacaduru cudurtoomidaana loogu qadari marka ficil hadday alifka u dambeeyo waxaa lagu qadarin damada iyo fadxada godka iyo kordhiga labadaasa lagu qadari haddii isim ay alifta u daba martana 3diiba waa lagu qadari oo waa maxay damadii fadxadii kasradii 3diiba waa lagu qadari isimka noocaas hadduu isim yahay marka lafdiga alifta u dambaydo hadduu isim yahay maxaa lagu magacaaba magacaanu iska leeyahay calam ah wa yusama alismu isimka waxaa lagu magacaabaa isimka almuntahi ku dhammaaday bilalifi alif oo alifta u dambaydo maqsuuran aa la yidhahdaa isimka fiiri alif hadday u dambaydo maqsuura la yidhahda hadday hamse u dambaydana mamduuda la yidhahda alif hamse u dabamari ambiyaa sowma madna ambiyaa sowma madna ashyaaa saxraa hamsadu markay u dambaydo waxaa la yidhaahdaa mamduud hadday alif u dambeeyo hamse ka dambayna maqsuura la yidhahda midkii la gaabiyey oo madka laga gaabiyey waxaa leedahay muusa ciisa fataa qadaa waxaad leedahay waxa weeya waxaan rabaa yakshaa kaasoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa waxa wey yakshaa fiiri yakshaa marka iyada xagga dhig waa ficil mudaaric isago xagga naga dhig isimaan rabnaa naga daa yakshaa ramaan naga daa waa ficil maada iyada booska kuma lehe isim soo qaado muusa ciisa fataa isimkaas alifka u dambeeyo magaciisa maxaa la yidhahdaa maqsuur kii la gaabiyey wey oo madka laga gaabiyey macaani kalena waa loola jeedaa wuxuu ku yidhi wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu isimka almuntahi ku dhammaaday bilalifi maqsuurana lagu magacaabaa wadalika mithaalki waaba kan saga kuu mithaalina mithlu lfataa wiilkii dhalinyarada ahay oo kale wey waalcasaa ushi oo kale weeye waalxijaa caqligii oo kale waayo waraxaa dhagax shiidkii oo kale waayo raxaa waxa weya 2 dhagax oo raashinka lagu shiito intaan makeenadahan iyo la helin dhagax ballaarana dhulka la dhigin badalkiia lagu shubin dhagax kaloo ballaarana la kor saarin meel yaraa marka inta laga dalooliyo oo geed looga mudo ayaa 2 dhagax laysmarmarina saasaa loo wareejina dhagaxa kore ayaa la wareejin markaasaa raashinkii isagoo shiidanu hoos ka daadana ma ujeeda 2 dhagax waa ballaaran saasa la isku saara midka koraa marka meel ka daloola oo raashinka looga shubo meel yaroo geesana waa ka daloola ha qoriya uga jiro geeda uga jiro oo la wareejina saasaa loo wareejin marka 2 dhagax saasoo iskugu wareegi mayaan raashinkii waa dhex gelaya waa shiidma isagoo shiidan dhinacyada ka daadana khalas reer miiga waxa weyan waa ratigooday saaranayo meesha degaan buu haystaa midka beerta le beerta u dhex yaalla waa dhagax raashinka lagu shiido raxaaga dhagax shiid waa
soo ma jeedid maxalshaydkan ka rabna hadda waxa weeye waraxaa alifa u dambayso maaha maxaa la yidhaha magaciisa maxaa la yidhaha magaciisa maxaa la yidhaha magaciisa maqsuura la yidhahda maqsuur ayaa la yidhahdaa waridaa waridaa maxaa u dambeeya asna alifa u dambeeya waridaa u fiirso marka asmaadii waa taas alifka u dambeeya maqsuura la yidhahdaa haye wamaa kii kaana uu ahaado aakiru aakirkiisu yaa-an ya kii aakirku ya yahay ya uu yahay tuqadaru waa lagu qadaraa caleyhi korkiisa addamatu damada iyo walkasratu kasrada miyaan ka tagna wamaa isimkii kaana uu ahaado aakiru aakirkiisu yaa-an ya-daasoo laazimatan joogta ah ya joogtaa maxaa la yskaga ilaalinaya waxaa la yskaga ilaalinaya ya marna imaanaysa marna tegayda musanahay noogu imaan doonto taasoo kalea la iska ilaalin waxaa la rabaa ya marna aan tegayn kelmadda ay u dambaydo wuxuu ku yidhi wamaa isimkii kaana aakiru aakirkiisu uu ahaado yaa-an ya-daasoo laasimatan joogtaa tuqadaru waa la qadaraa caleyhi ismkaas korkiisa addamatu damada iyo walkasratu kasrada dama waa god kasrana waa hoos dhig labadaasaa lagu qadaraa icraabna meequu isimku lahaa 3 lahaa aaway tii kale waa fadxadii waa ka muuqana iyado fadxada laguma qadaro isimka ya-da u dambaydo waa ka muuqana maxaa yal ya-du fudayd wey fadxadu waa fudayd ciladii wax loo qadaraya in culays ahe mar haddii ciladii baxday waa in cudurkii hadduu baxay caafimaadka ilaalkaa sooma marka ya-du isimkay u dambaydo laguma qadaro fadxada ilaa iyadu ma cusle laakiin damadu waa culus tahay kasradu waa culus tahay isimka ya-da u dambaydo waa lagu qadaraa lithiqali culayska dartiisa loogu qadara maxaa la yidhaha isimka marka ya-da u dambaydo magaciisa magac caamhu iska leeyay magac oo caam ah ayuu leeyay caam wey caam maha magac caam ah uu leeyay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa al-ismu isimka almuntahi ku dhammaaday bilyaa-i isimka ya-da ku dhammaado ya-da u dambaydo manquusana la yihahda magaciisa manquus maxaa loo yiri fii bacdi axwaalihi iyo xaraf laga nuqsaamiya fii bacdi axwaalihi xaaladihiisa gobol ka mid aha xarafka ya-daha la tuuraa qaadin fiiri qaadi soo ma ahayn qaadin daacin haadin ya qur-aanka soo kuma arag daacin fiiri fii bacdi axwaalihi yaa la xadfa ya-da markaa saasaa loo leeyahay waa manquus isim wax laga nuqsaamiyey weeye isim oo wax laga nuqsaamiyey wey fii bacdi axwaalihi xaaladihiisa gobol ka mid haye isimka ya-du u dambaydo u fiirso isimka ya-du u dambaydo xaraka laga muujiyaa jirta oo waa maxay isagaa kuu sheeg wuxuu ku yidhi wa tadharu waa muuqataa calayhi isimka manquuska ah alfatxatu fatxadu waa ka muuqataa maxay uga muuqaneen likhifatiha liajli khifatiha fudaydka daraaddiis ma garatay wa tadharu waa muuqataa alfatxa calayhi isimka manquuska ah alfatxatu fatxadii way ka muuqataa maxay uga muuqaneen likhifatiha liajli khifatiha fudaydkeeda daraaddiis naxwu alqaadiya maxaa leedahay ra-aytu waxaan arkay alqaadiya qaadigii wadaaciya kii dadka u yeerayey wadaaciya walghaaziya kii gaalada ku duulayay muslim ku duula mahanade walghaaziya kii gaalada ku duulayay wasaaciya kii shaqaynayey walaatiya kii imaanayey waraamiya kii madfaca ku tuurayay gaalada waa kaasa waxa weeye isimka ya-du u dambaydo iyadoo fatxada waa laga muujiya waa laga muujiya maxaa yeele fatxadiya fudayda marka halkaas maxaad ogaatay isimka ya-du u dambayda labaa lagu qadarin ixraafka waa damada iyo kasrada fatxadana waa laga muuji isimka alifka u dambeeyana 3daba waa lagu qadara saas weynaad ogaata wuxuu ku yidhi wamaa isimkii kaana ahaada mudaafan mid loo tiiriyey ilaa yaa-ilmutakalimi qof hadlaaya ya-diisa qof hadlaaya ya-diisa haddii marka lala xiriiriyo isimka oo gadaal waxa weeyaan loo idaafeeyo qof hadlaaya ya-diisa wamaa isimkii kaana ahaada mudaafan mid loo tiiriyey ilaa yaa-ilmutakalimi tuqadaru waa lagu qadaraa caleyhi isimkaas alxarakaatu xarakooyinkii kulluha dhammaanteed
xarakaadkii saddexda baa lagu qadara maxaa loogu qadarin lilmunaasabati ya-da munaasabadeeda daraaddeed ya-da macnaha waxaan kasra ahayn inay ka hormaraan munaasib uma aha ya-da xarafka ka horeeyana waa kelimada la icraabayo xarafkii ugu dambeeyo icraabku degi lahaa u fiirso naxwu ghulaami hadda ghulaam miimka u dambeeya ya-dan waa isim kale ya-dan waa isim kale laakiin ghulaam miimka u dambeeya haddana isimkii ghulaam ahaa isim kalea ka dabamaro ya-daas ah ya-duna waxay rabtaa xarafka ka horey in lahoos dhigo miimkii marka waxaa degay kasradii manaasibka u ahayd ya- ghulaam marka haddii caamil galo caamil inuu wax godo rabo hadduu galo damadii waa lagu qadari ilaa meelay degto male booska ay degi laheed waa miim miimkiina wuxuu ku mashquulsan yahay xarakada kasrada ah oo ya-du iska leedahay haddii caamil wax hoos dhigayaa uu ghulaam galo waa lagu qadarin kasrada sababtoo ah kasra meelay degto male booskay degi laheed waa miimka ilaa kelimad xarafka ugu dambeeya ixraabku dega ghulaamna miimka ugu dambeeya booskay degi laheed waa miimka waxaana mashquuliyey miimkii ya-da kasradeedii haddii caamil wax kordhiga uu galo ghulaam waa lagu qadarin fatxada sababtoo ah fatxadu meelay degto ma haysato meeshay degi laheed waa miimka miimkiina waxaa mashquuliyey ya-daas kasradeedii wuxuu ku yidhi naxwi ghulaami wiilkaygii wa kitaabii aniga kitaabkaygii hadlaya wa sadiiqii aniga saaxiibkaygii wabnii aniga wiilkaygii wa ustaadii aniga macallinkaygii fiiri asmaadaas kulligood saxiix aakhir wey laakiin sababta keenta icraabka in lagu qadaro waa maxay waa ya-da loo idaafeeyey ya-da ka dambayda wey ya-daasaa xarafkii ugu dambeeyo kelmadda icraabkeedu degi lahaa waxay saaratay kasro markaasaa icraabkii lagu qadari halkaas wuxuu uga taqaluso uga gudbay icraab wixii la dhihi jiray iyo mucrab wixii la dhihi jiray u fiirso wuxuu rabaa inuu halkan ka galo icraab wixii la dhihi jiray halkaas uga gudbay mucrab waa lagu sheegi doonaa wuxuu rabaa binaa inuu halkan ka galo binaa ilaa kelimada carabiga kulligeed isku dar kelimadna waa mucrab midna waa mabni marka icraab iyo binaa waa inaad kala garato kelimada carabiga o dhan midna waa mucrab midna waa mabni wuxuu ku yidhi wa yuqaabilu waxaa kasoo horjeeda alcraab icraabka albinaau dhismaha binaa kasoo horjeedu ku yidhi wayatadixu waa caddaanaa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a tamaama alitidaaxi caddaansho dhammaystiran bisababi bayaanil aakhari kan kale caddayntiisa sababteed mid walbaaba kan kale marka la caddeeyo caddaana haddaan kan kale la caddayn caddaanma wayatadixu waa caddaana kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a tamaamal itidaaxi caddaansho dhammaystiran bisababi bayaanil aakhari kan kale caddayntiisa sababteedu ku caddaana waqad taraka waa ka tegey almu'alifu shiiqa ajruumiga alifay maxamed ibnu daawuud assinhaaji waa uu ka tegey bayaanal binaa'i bina inuu caddeeyo ma uusan caddayn waa ka tegey binihii wa naxnu annagaa nubayinu laka kuu caddaynayna do isagoo ka tegi annagaa kuu caddaynayna bine isagoo ixraab kale iyo caddeey waana ka tegi wuxuu yidhi dadkan oo ibtidaa'iga yaysan ku badan warku badanaa warka badan waa uga dara weyd wadwadka uga dara sooma mara neef caataha dadka xayba maantona ka war meelay ku baqteen marka dambe dadkan ibtidaa'igana warka badan waa uga dara wax iskaga qasma adoo isla u roonaawo bal u caddee oo u caddee oo u caddee ya waxa weeye war iyo weydba wadwadka uga dara le warka haddii la wadwado meel xumo tegaasna soo maarta in la aamusaa roon hadduu hadalku xumaado maana war iyo weydba wadwadka waa uga dara saasoo kale way dadka ibtidaa'iga warka badan waa uga dara saas darteeduu binihii uga tegey soo ma jeedid waqad taraka waa ka tegey almu'alifu mu'alifka bayaanal binaa'i binaha caddayntooda wa naxnu annaga uu yidhi maxamed muxidiin cabdilxamiid wa shaarixa wa naxnu annagaa nubayinuhu caddaynayna binihii laka adaan kuu caddaynaynaa cala dariiqati waddadiiaana ku caddaynaynaa allatii waddadii bayannaa aan ku soo caddayno bihaa waddada alicraaba icraabka dariiqii aan ku soo caddayna icraabkaan ku caddaynayna fa naquulu waxaan leenahay uu yidhi lilbinaa'i binihi macnayaani laba macnaa u sugnaaday binuhu laba macnuu leeyay axaduhumaa midkood luqawiyun waa mid luqa loo nisbeeyey
wal aakharu kan kalena isdilaaxiyun waa mid heshiis loo nisbeeyey. binaha luqa maxaa lagu yidhaha binaa? naxwoolaydu maxay ku heshiiyeen inay binaa ku magacaabaan? labadaasaan ku caddaynayna wy. fa amaa macnaahu binaha macnihiisa fi luqati xagga luqada ugu macnaa fa huwa binihii cibaaratun ka warramid weeye can wadci shayin shay saaridiisa calaa shayin shay kale la kor saaro calaa jihatin qaabna loo saaro jihadaasoo yuraadu loola jeedo bihaa jihada athubuutu sugnaasho iyo waluzuumu laazimid. haddii lagu yidhahdo binaa maxaa la yidhahdaa? waxaa leedaha wadcu shayin calaa shayin calaa jihatin yuraadu biha athubuutu waluzuum. waa shay la kor saaray. korsaaridaasna ujeedada laga leeyahay ay tahay shaygaanu meesha ha ku sugnaado yuusan ka foqin. hadda fiiri, kitaabkan haddaan sariirta saaro binaa ma la dhihi karaa? yah, bal fiiriya qaacidadii fiiriya. shay la kor saaray ujeedada loo saarana ay tahay ha isku dheganaadeen o yaysan mar dambe kala fuqin. haye kitaabkaanan qaaday sariirtaana kor saara, binaa ma la dhihi karaa? lama dhihi karo binaa. saa kitaabkan haddaan rabaa inaan ka qaatee, laakiin fiiri derbigaanaan dhisi rabaa. shamiid dhagax xiyaan meeshii saaray, shamiidtaan saaray qoyan, dhagax kalaan saaray, ma la dhihi karaa binaa? waa la dhihi karaa. sababtoo ah maxaan isku saaraa oon shamiitada meesha ugu dhejiye? inay isku dheganaadaan soo maa? waa kaasa binaa. binaa waxaa la ihahdaa wadcu shayin calaa shayin calaa jihatin yuraadu biha thubuutu waluzuum. shay la kor saaray qaabka loo saaran ay tahay isku dheganaadeen. waa kaasa luqa ahaan waa luqada ogow. marka qaar hadda kitabka haddaad meesha saarto waa binaa ka hor, haddaan ba qaadan rabaa say ku ta lama yihahdo. taas waa maxay? binihii luqadiisii wey. istilaaxa gal marka, istilaaxa muhiim. wa amaa macnaahu binaha macnihiisa fil istilaaxi heshiiska naxwoolayda waxay u yaqaaniin binaa fa huwa binihii luzuumu aakhiriilkelimati kelimada aakhirkeedoo laazimo weeye xaalatan xaaladaasoo waaxidatan keligeed. waxaa la yidhahdaa kelimadii aakhirkeeda hal xaalad iska laazimo. min oo kale ama man. fiiri, man waa isim, maxaa u dambeeya nuun. nuunku waa reebanya soo maaha. haddii caamil kor dhiga la gelsho saas u reebnaana nuunkaasu. caamil hoos dhiga haddii la gelsho saasuu u reebnaana. caamil goda haddii la gelsho saasuu u reebnaana. sukuunkaas iska laazimi. eyna fiiri, eyna maxaa u dambeeya nuunka korkiisa fatxa sooma saaran kordhig. caamil goda haddii la gelsho eyna saasay u kordhignaane. caamil hoos dhiga haddii la gelsho eyna saasay u kordhignaane. caamil waxa weeyaan goda haddii la gelsho eyna saasay u kordhignaane. weligeed isbedelmi. kayfa waa saas oo kale. amsi shalay, maanta aad joogto maanta ka horreeda leera amsi. alyawm aladi qabla yawmik. marka amsi caamil goda haddii laga hormariyo saasay u hoos dhignaane. caamil kordhiga haddii laga hormariyo saasay u hoos dhignaane. caamil waxa weeyaan goda haddii laga hormariyo saasay u hoos dhignaane. weligeed isbedelimi. soo ma jeedid? xaythu fiiri, xaythu makaan. xaythu sawda godma saarna. caamil goda haddii laga hormariyo siday u godnaane. caamil kordhiga haddii laga hormariyo siday u godnaane. caamil hoos dhiga haddii laga hormariyo siday u godnaane. weligeed damadaasi laazime. kelmadda nuucaasaa la yidhah waa kelmad mabni ah. kelmad aan caaqibkeeda isbedelayn caamil kastoo laga hormariyo waa taasa. kelmad mabniya maxaa la yidhahdaa? waa kelimad caamil kastoo laga hormariyo aan isbedelayn caaqibkeeda. sababta isla bedeli weydayna maahan hal caamilaa gala. caamilyaalku way galaan iyagoo kala duwan, laakiin caaqibku isma bedelo. waxaa jira kelimad fiiri caamil kaliyuhu galo oo mucraba, sida subxaana allah. weligeed caamil kale ma galo. usabixu a ka horeeya. subxaana allah mar kastoo macnaynayn maxaa laleeyahy? subxaana allah, ilaahay nastihidiisa ayaan nastaha. maxay taa macnaheedu? usabixu llaha. usabixu subxaana allah. usabixu a ka horeyda, ficilkaas mudaarica ka horeeya, wax kalena maba galaan. macaad allah, ilaahan magangela aad arkay. macaad allah, weligeed macaada saasay u kordhignaane, sida subxaana oo kale. subxaana soo ma kordhigna. macaada saasay u kordhignaane, mabnina maaha labadooduba. maxaa dhacay? macaada weligeed, macaada fiiri, weligeed waxaa ka horeeya astaciidu, waxaan magangela a ka horeyda oo meesha ka xadfan.
astaciidu waa magan gala marka waa la iska fududaysa waxa la yidhaha macaad allah ilahay maan magan gala ilaahay magangelidiis allahaasaan magan gala subxaana allah ala iska leeyahy usabixid waa la iska xadfaa marka subxaana allah weligeed subxaana kordhigaasay laasimtaa macaadana kordhigaasay laasimtaa mabnina maaha maxay u laazimi hadday mabni aysan ahayn hal caamila gala kelimada mabnigana waxaa la rabaa waa kelimad cawaamishii kala duuneed way gelaysaa laakiin haddana caamil kastoo galaa aakirkeeda waxba iska bedeli maaya kelimada mabniga waa kelimada waa kelimad caamilyaalkii iskhilaafsanaa gelaya laakiin isbedeli ma aakir u fiirso marka wuxuu ku yidhi wa amaa macnaahu binaha micnihiisa fil istilaaxi istilaaxa ugu macnaa fa huwa binaha luzuumu aakhirikelimati kelimada aakhirkeeda oo laazimo weeye xaalatan xaaladaasoo waaxidatan keligeeda ligayri caamilin caamil la-aanteeda waa inay u laazimtaa muxuu iska ilaalinaa licaamilin hadday aakhirka u laazimo mabni maaha subxaana allah iyo macaad allah kordhigay laazimaan laakiin sababtay u laazimeen hal caamilaa gala oo wax kordhiga haye walaa ictilaalin cilla la-aanna waa inay laazimaan ictilaal muxuu iskaga ilaalinaa alfataa hadda sooma aanaan marin caamil godaa ka hormaray alfataa ay iska ahaa hal xaalay laazimta caamil nasbiyaa ka hormaray alfataa ay iska noqoto caamil kasriyaa ka hormaray alfataa ayay iska ahayd halkaas xaalay laazimayda caamiyaalkiina way badnaayeen laakiin sababta keenayda hal xaal inay laasimto maxay ahayd alfataa waa cillada xarfu cilla u dambeeya waxaa la rabaa kelmadda iyadoon xarfu cilla u dambeyn kelmadda mabniga waxaa lagu yaqaan ayadoon xarfu cilla u dambeyn hal caamilna uusan gelayna caamilyaal kala duwanu geli karaan inay haddana hal xaalada iska laasimto hal xaalay laasime caamilyaalka gelaana waa badan yihi oo hal caamil ma galo xarafka u dambeeyana xarf cillo maaha marka ligayri caamilin walaa ixtilaana waa saas wadalika mithaalka wuxuu ku yidhi ka luzuumi kam oo kale wey kam laazimideeda kam laba macnay ku timaada carabiyada istifhaam kam maaluka waa imise horta maalkaaga kam cumruka waa imisaa jirtaa fiiri iyo kam khabariya kam khabariya kam maalin maal badana afaadatu yaddi gacantaydu ay faaidey maxaan maal ku shaqeeyay gacanta wax badan ay faa'iideynay fiiri labada kam isku dar midda khabariyada iyo midda istifhaamiyada labaduba kam miimkeedu saas u reebanay haddii la caamil goda laga hormariyo miimku waa reebanaana caamil kordhiga haddii laga hormariyo miimku waa reebanaana caamil hoosdhiga haddii laga hormariyo miimku waa reebanaana kam oo kale waa iyo waa man oo kale manna waa lamid waa ism maca ayado mantu waa badanta manta shardiya kamida istifhaamiya kamida man shardiya iyo istifhaam iska daa baabkeeda waxba ayay ku qasin manta weligeed nuunkeedu saas u reebay fiiri caamil kordhiga haddii laga hormariyo caamil goda haddii laga hormariyo caamil hoosdhiga haddii laga hormariyo nuunku saas u reebanaana kelimada noocaas oo kalea mabni la yidhaha oon aakhirkeeda isbedelay marka caamilku isbedelo wuxuu ku yidhi wadalika ka luzuumi kam iyo waman kam iyo man laazimidda ay laazimayaan oo kale wey assukuuna sukuunka caamil kastoo ka hormara sukuunkaasay laazimayaan iyo wa ka luzuumi haaulaai laazimideeda oo kale waayo iyo wa xadaami waa gabar magaceed waa xadaami gabar magaceed waa haaulaaina waxaa lagu ishaaraa wax jamaca waxay rabaan waxaada dhagxaan ha ahaadeen guryo ha ahaadeen dad ha ahaadeen xoola ha ahaadeen waxay rabaan ha ahaadeen haaulaai kuwaan wixii jamcaha lagu ishaaraa weligeed haaulaai saasay uhoos dhignaane caamil goda hadaad ka hormarido haaulaai alaleey caamil kordhiga hadaad ka hormarido haaulaai alaleey caamil hoos dhiga hadaad ka hormarido haaulaai alaleey soo ma jeedin marka kelimadaas aakhirkeedu uusan isbedelayn ayadoo caamilyaalkii isbedelayaan waa taasaa kelimad mabniya xadaamina waa la mid wa amsi iyo amsi oo kale waa ka luzuumi haaulaai laazimideeda oo kale waayo iyo wa xadaami laazimideeda iyo wa amsi laazimideeda alkasra ay iska laazimayaan wa ka luzuumi mundu laazimideeda oo kale waayo iyo wa xaythu mundu xuruufulkhafdi ka midta laakiin sooma adnaan marin kitaabka aakhirkiisay noogu imaan doontaa xuruufulkhafdigu intaad soo aragteen kaliya maa 21 wey xuruufulkhafdi marka kuwa aadnan soo marinay kamid too kitaabka aakhirkiisa ku imaanayo weligeed mundu daalkeedu saas u godnaadaa wa xaythuna saasay u godnaataa wuxuu ku yidhi wa ka luzuumi mundu laazimideedoo kale waa iyo wa xaythu adama ay laazimayaan iyo wa ka luzuumi eyne laazimideedoo kale iyo wa kayfa
maxay laasimeen alfatxa kordhigaasay laasimeen mabni taasaa la yidhaha wuxuu ku yidhi marka wa min hada alidaaxi caddayntaan fiiri wa min hada alidaaxi aan ku yidhi caddayntaan ila isagaa soo caddeeyey iskama caddaane hadhihin caddaanshada isagaa soo caddeeyey maana iskama caddaan wa min hada alidaaxi caddayntaanuu ku yidhi taclamu waxaad ka ogaaneen ana alqaab albinaa'i binaha magacyaalkiisa laqab waa taqaanaa maynaasta maynaasta ama koofaarta hadda sad u taqaano ana alqaab albinaa'i binaha maynaasyaalkiisu 4 wa 4 afar nuuc wey macnaha anwaacdaa loola jeeda nuucyaalkiisa loola jeeda nuucyaala loola jeeda meeshaa naynaasiya laga hadli maa afar wey assukuunu sukuun oo waxaa jirta kelimad mabniya oo sukuun iska laazimayda weligeed ko iyo walkasru kasru waxaa jirta kelimad mabniya weligeed hoos dhigay laazimay iyo wa damu waxaa jirta kelimad mabniya oo weligeed damo laazimay goda iska laazimay waxaas dhan waa soo mar hedhow adaa lagu weydiina iyo walfatxu fatxa waxaa jirta kelimad mabni ah oo weligeed ay u dambaydo kordhig waana soo marnay wuxuu ku yidhi wa bacda bayaani kulli haadihi alashyaa shayaalkaas caddayntooda ka gadaal laa tacsuru ku cuslaamaydo calayka korkaaga qof taalibcilmiga laga hadla dadaalaya laga hadli maayo mid inta dhegta keensada hadhow kitaabka xagga ku tuuray kaas weligeed waa kugu cuslaamay adiga maahan dadka lala hadlayo dadka lala hadlayo laleeyahy wax ku cuslaamaayaan waa qof niyo adag leh oo dadaalaya oo marna alla baryaya marna akrinaya oo ka soo baxaya casharkii hore ma garad taasaa laga hadlaya qofka laleey wax ku cuslaamaayaan waxa weeyaan midkaan oo waxa weyan iska halaaqoonaya ma laga hadlayo wuxuu ku yidhi wa bacda bayaani kulli hadihi alashyaa shayaalkan dhammaanto wa bacda bayaani kulli hadihi alashyaa shayaalkan dhammaantood caddaanta la caddeeyey ka gadaal markii la caddeeyey ka gadaal laa tacsuru ma cuslaanaydo calayka korkaaga macrifatulmucrabi mucrab garashadiis macrifatulmucrabi mucrab garashadiis iyo walmabniyi mabni garashadiis ma kugu cuslaanaydo insha allah haddaba icraab waa soo garanay mogta waa kana mucrab iyo mabnina icraab waa soo gadanay aadan usoo garannay binaana waa soo garanay war labadaas oo soomaanaan garan war labadaas ma la soo fahmay hadda waxaa halkan lagu barana waxa la yidhaha mucrab iyo mabni tii hore maxay ahayd icraab iyo binaa haddana maxaan baranaynaa mucrab iyo mabni wuxuu ku yidhi fa ina almucraba mucrab maa lafdi weeye tagayara uu isbedelay xaalu aakhirihi fa ina almucraba mucrab maa lafdi weeye tagayara uu isbedelay xaalu aakhirihi aakhirkiisa xaaladiisa xarafka ugu dambeeya xaaladiisu ay isbedeshay lafdan xagga dhawaaqa ay iska bedeshay ow taqdiiran ama xagga taqdiirta ay iska bedeshay bisababi tagayuri lcawaamili caamilyaalka isbedelidooda sababteedana uu isku bedelaya aakhirku wuxuu isla bedelaa caamilyaalkiiya isbedela taas waa mucrab hadii la weydiiye intaasaa lagaa rabaa inaad xifdisantaha macnaheedaana muhiima ogow walmabniyu mabni maxaa la yidhahdaa maa lafdi weeye lazima uu laazimay aakhiruhu aakhirkiisu xaalatan xaaladaasoo waaxidatan keligeed oo usan isbedelayn ligayri caamilin hal caamil oo laazimay darteedna uma laazimayo ma ahan sababtuu halka xaala u laazimayaa in hal caamil galo maaha caamilyaal kala duwan waa galaan ee waysan saamay karin oo aakhirku isma bedelo ligayri caamilin caamil la-aanteedu uusan isbedelayni ku macnaha hal caamil oo gala ma ahan sababta keenta inuu meesha taagnaado ee iyadoo caamilyaalkii iskhilaafsanaa gelayaan uusan haddana isbedelin kaasaa ku yidhah ku bam walaa ictilaalin cilo darteedna islama bedeli diiday sababtuu isla bedeli diiday ma ahan cila u dambaydo alifa u dambeeya maaha xaraf saxiixa iyadoo u dambeeya aan aakirka haddana isbedelin soo uma jeedin haye wax yaroo waxaa lagu darin marka lagu dirin su-aalo ah wuxuu ku yidhi bayin caddee tamriin horta waa meesha tababarka meesha ku qaada lahayd wey oo lagugu layli lahaa ood waxa weeyaan ku baran lahayd carabiga bayin soo caddeeya lagu leeyay iska fadhi maaha bayin caddee almucraba isimka mucrabka ah amase ficilka mucrabka mucrab ila ficil mudaaric iyo ism daahira wey
bayin caddee almucraba mucrab bianwaacihi maca anwaaci nucyaalkiisu ayadoo la jiraan iyo walmabniya mabni min alkelimaati kelimooyinka ka soo caddee kelimooyinka alwaaqicati dhacday fil cibaaraati tacbiiryaalka alaatiyati imaan doona qaala acraabiyun nin reer baadiyaha wuxuu yidhi allaahu alle yukhlifu asagaa bedel siiya maa atlafa naasu dadku waxay baabi'iyaan wixii dadku baabi'iyaan bedelkeeda allah bixiya wa dahru laakiin zamanku yutlifu wuxuu baabi'iyaa maa jamacuu dadku waxay kulmiyeen wa kam imisa min maytatin mid dhimatay cilatuhaa cudurkeeduna dalabul xayaati nolol raadinteeda imisa u dhimatay nolol raadin oo iyagoo maydka calanay mawdka u yimi wa xayaatin wa kam xayaatin wa kam min xayaatin in badan haye waa imisa noloshaasoo sababuhaa sababta keenayda ay tahay adtacarudu u banbixid lilmowti geeri loo banbaxo imisa ayaa waxa weeye nolol haysta waxay ku nool yihiinna ay tahay geeri u banbixeen cadowgiiyaad isku dullayday waxaas tiri waxa weeyaan doqon waxay u dagaalami ladahay maxaa la yidhi yaan lagaaga dari doqon waxaa la yidhi sababtay la dagaalami lada waxa wey yaan lagaaga dari waxay is leedahay haddaad dagaalanto waa lagaaga sii dara markaasay qoorta dhiibana markaasay ku dhimaan lagu dila 200 maanta la gawraco falastiiniyiin 5 maanta lagu daray 1 beriyaa la gawracay doqon waxay la dagaalami ladahay yaan lagaaga dari sooma marka waxa weeye imisa wuxuu ku yidhi aad dhimatay cudurkay la dhinteenna ay tahay nolol raadin imisa nooluu ku yidhi oo sababtay la nool yihiinna ay tahay inay u banbixeen mawdka oo yidhaahdeen dulli ku noolo waxa ka roon sharaf u dhimo waa usoo banbaxeen cadowgii iska hor istaageen cisay ku noolaadeen lama tiri karo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed